السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا سان كلاود سومالي راديو راديوها سومالي دا مالدا سان كلاود او آد كدقي ستان شبكة أنو كلنا هاي إنترنت كا وحانا إذين هوستي قرينيا برنامج كان آدقي سنيسان مانتا أنيقو أو أحمد عبدي وحاونو كساب سي هاي بل حالدها سياسة ودن كان مريكان كا قاسهان دقمدن أنو دقن هاي Strange County ama gobolkan Minnesota waxaa dhawaan ka dhacay kulamo aanu ka qayb galnay aniga iyo Cabdullaahi Kulane oo ka dhacay magaalada St. Cloud kuwaas oo ka kala dhacay maktabada library-ga ama St. Cloud Library oo ku yaala magaalada St. Cloud iyo sidaas oo kale xarunta Whitney Center. Waxaan ka wareysanayaa Cabdullaahi oo isaguna ahaa dadkii ka qayb galay kulamadaas bal in uu mujtamaca Soomaalida ee ku dhaqan magaalada la wareego. Cabdullaahi ku soo dhawow St. Cloud Somali Radio barnaamijkan oo ogeysiiska iyo wacyigelinta bulshada Soomaalida aanu hadba wixii magaalada ka jira aanu ku wargelino bal waxa iga warantaa meetingkii aad ka qayb gashay ee ka dhacay library-ga ama maktabada yaa ka soo qayb galay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد واد مهتسنتهي عسومتنا ديو عسومتي إذا عدن سان كلاود سومالي راديو وانا دينكو مهتنها فرتانك إذا عدن وإذا عد مهم النغض عن توعية جننت أمد الصومالية كان عقبتلي دونتا برنامج جدا مهم كسعب دكمدة haddii aan dib ugu noqdo barnaamijkii aan ka qayb galay waxaa ka soo qayb galay town hall meeting wax la yiraahdo waxaa ka soo qayb galay mayorka magaaladan St. Cloud mayor Dave Kells waxaa ka soo qayb galay labada degmadan Senate District 14 dadka laga doorto kala John Peterson team oo District 14B ah iyo Zach Dorholt District 14A iyo Zach Dorholt oo District 14 B saddexda mudane laga doorto iyo area tan District 14 la dhahayo oo quseeya aqalka hoose iyo aqalka sare ee gobolkan Minnesota. barnaamijka laga hadlayna wuxuu ahaa issue-yada ka jira iyo beeliska iyo sharciyada yaala aqalka Minnesota ee muhiimka ah ummadda marka waxay ahayd waxaana danay barnaamijka mayorka magaalada Mayor Davis intaas ayuu Cabdullaahi waxay sheegtay meetingkan waxaa ka soo qayb galay duqa magaalada David iyo laba nin oo iyagu xisbiyada xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga Republican ka socday waa maxay ujeedada meetingkan waxaa ka soo qayb galay sidaas mujtamaca ku dhaqan agagaarkan ama degmadan waa maxay waxyaalaha lagaga hadlayay ee markaas miiska saaraa oo saabsanaa meetingkan kulankan waxyaalaha laga hadlayo waxaa kamid ah issue-yada hadda ka jira beelasha yaala state-ka oo hadda diyaarka ah in ay dadka waxay ka qabaan laga wareysto saas oo muhiimadu ahayd oo public ku dhageen dadka matala ummadda ay dhageystaan waxaan ka qabto waxa beeliska laga hadlayay beelka hadda yaala oo kamid yahay wadagta state-kan inuu hooseeyo beels minimum wage-kiisu marka kor in loo qaado beel ayaa yaala oo minimum wage-ka lacagta uu qofka shaqaalaha qaadan karo ugu hooseysa ugu yar qaadan karo qof alaho saacad 7.25 baa laga yaabaa hadda inay ku shaqeeyaan dadka badanteelada iyo maqaaxyada ka shaqeeya marka in kordhiyo 7.25 waxba ma deeqdo qofkina kuma noolaan karo beelashiisa kuma bixin kara in la kordhiyo kaasoo wuxuu ahaa barnaamij kamid oo laga hadlay waxaa laga hadlay waxbarashada dhaqaalaha in loo kordhiyo waa laga hadlay marka budgetkana waa laga hadlay oo budgetkan hadda oo sanadkan state-ka waad ogtahay asagana doodkul ayaa ka taagan governorka ama gobernatoraha gobolka Minnesota wuxuu soo bandhigay budgetkaasna asagana doodkul ayaa ka taala waxay kaloo laga hadlay waxa waaye issues-ka uu kamid yahay gay marriage iyo guurka dadka isku nooca ah oo ay hadda Minnesota qalqalinayso laftirkeedu legislation-keedu inay iyaguna geeyaan oo asagana oo doodkul baa ka asagana waxyaalaha laga hadlay ayuu kamid ahaa saddexda waxyaalood baa ugu muhiimsan Cabdullaahi waxaa laga yaabaa Soomaalidu inay nala yaabaan marka tiraahdo gay marriage laakiin waxa dhacday meel dhaweed ama aqaan inaad ku aragtay internetka
gabar Soomaaliya oo la sheegay in lagu xiray islaan sadohdeeda gabadhan waxaa la yiraahdaa neerskayd Soomaalida ayd waxay saaxiib lahayd gabar kale oo u dhalatay wadanka Mareykanka marka waxaan maleynayaa Soomaalida naftigeeda arrintan aad ka hadashay inay bataaban doonto su-aashaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa weeye arrin aad adigu naftigaaga ka hadashay baa jirtay oo aad dadkii codka ka dhibtay aad ka mid ahay oo aad ka hadashay dadka lacagta ay qeeyaan in ay aad u hooseyso waxaad marka cudurdaar uga dhigtay haddii la kordhiyo dadka lacagta ay ku shaqeeyaan dadka waxay ka maarmi karaan lacagaha ay dawladda ay ka qaataan sida waxaa tusaale ahaan ama ha noqoto cuntada lacagta loo siiyo food stampka ama lacagta guryaha lagaga caawiyay ama guryaha low income-ka waxaad tiri aad ku andacotay adiga dadkii ka mid ah hadlay aad ka mid ahayd haddii dadka loo kordhiyo lacagaha ay qaataan way ka maarmi doonaan inay ku tiirsanaadaan dawladda waa mahadsantahay Axmed aniga horta Cabdullaahi ahaan waad ogtahay inaan involve gareeyo aad uga qayb qaato arrimaha siyaasadda ee degmada tan meel kastoo siyaasad laga hayana waan kaga hadlaa arrimaha Soomaalida waad ogtahay dadka ku shaqeeya minimum wage-ka ama lacagta yar ee $7 waa dadka soo galootiga wadankan soo galay meelahay ka shaqeeyaan waxaa ka mid ah hoteelada waxaa ka mid ah maqaaxiyada warshadaha hilibka iyo meelahaas oo kale iyo warehouses marka lacagta lagu qaato waa lacag yar dadkii ma anfacayso marka inay guriga kiradiisa isaga baxshaan wax ku saartaan oo ilmihii ku biishaan waxbarasho isaga baxshaan baabuur ku kireeyaan ay productive citizen ay ku noqdaan ma anfacayso marka sidaa la adligeed maadaama ay dadka isku filnayn baa dawladdu kala ka kabtaa waxay ka kabtaa guryaha waxay ka kabtaa cuntada waxay ka kabtaa waxyaalahaas oo kale marka doodaydu waxay ahayd idinka wax diidan tihiin not necessarily inay kulligood diidanaayeen in haddii ilaahay idinkeeda leeyahay dadka loo kordhiyo minimum wage laakiin waa inaad ogaataan in ay si kala dadka lacagta kaga soo galayso dawladdii oo kaga soo galayso xagga subsidized housing oo kaga soo galayso xagga cuntada food stamping oo laga yareeyo marka dadkii in la dhiirigeliyo in ay shaqadooda ay ku filnaato oo lacag fiican ay ku helaan oo ay ku qaataan oo kaga maarmaan gacan horsiga intaasaa muhiima ta kale waxay kaloo ka anfacaysaa ilmaha inay role model ay u arkaan waalidkood oo shaqaysanayo waxay ku shaqaysteen wax ku anfacayo ama wax isaga bixinayo ama guri isaga bixinayo oo gacanta horsanayo markay arkaan ayagiina inay noqdaan okay aniga aabahay baan ku deenayaa ama waalidkay baan ku deenayaa wax baan qabanayaa waxa kaloo ka anfacaysaa caafimaadka xagga ilmaha waxa kaloo ka anfacaysaa emotionka iyo niyadda dadka ayay ka anfacaysaa markii waxa waaye markaad shaqayso oo lacag yar aad ku shaqayso lacagtaa yartaa ee aad ku shaqaynayso hadday ku anfici weydo dee shaqadii moral uma helaysid marka waxyaalahin ku andacoonaya waxyaalahaasa ka mid ahaa dee inkastoo laftigayga layla dooday oo de waad ogeyd in ay dood meesha ka taagnayd maadaama ay dadka ku shaqeeya minimum wage-ka $7 iyo waxa ka mid ah wax ka yarba ay yihiin dadka soo galootiga dee aniga unbaa dee qabsanaysa inaan u doodo waayo haddaan adigu miiska imaan cid kuu doodaysa lama arko waa waxyaalaha aan ku waaniyo dadka leaderska Soomaalida in meelaha wax lagu qaybsanayo oo lagaga hadlayo arrimaha muhiimka ah ummadda iyo masiirkeeda inay yimaadaan oo ay dhinacooda ka qabsadaan haddaysan saas sameeyna hadda nin asagii aan ku shaqaynayn lacagta hoose yarta adiga ku doodi mayo waa inuu og yahay inaad wax dooran karto oo berri haddii waxa iyaga anfacaya aadan u qaban oo aadan ka hadlin oo ama aadan wax ka qaban uusan berri ku dooranayn b inuusan imaanayn meeshii uusan hadlaynin oo qarqarka haysan taladii labadaaba midma haddaysan dhacayn haddee waxaa la yidhi Soomaalida ku maamaadaa nin aamusay habartiba qadisi lan qof la doortay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana waxyaalaha aanu jecelnahay haddii ilaahay idma dadka Soomaalida ah inaan ka dhargino anagoo uga soo warrami doono kulamada magaalada ka dhacaya iyo waxyaalaha dadka hadba arrimaha taagan ee markaa laga hadlayo Cabdullaahi waxaa jirta arrimo waxbarashada ahaa ilaa heer jaamacadeed ilaa heer dugsiyada hoose oo iyagu naftigooda mar walba dadka qarashka ama dawladdu ay ku xisaabtanto dawladda iskuulaadkan ay bixiso heer jaamacadeed iyo maxaa nooga sheegi kartaa waxyaalaha waxbarashada xaggeeda oo kulankii hore lagaga hadlay inkastoo kulankii dambe aan u malaynayaa qaas ahaan inuu waxbarashada u qaas ahaa maxaa kulankii hore lagaga hadlay kulankii hore waxaa lagaga hadlay waxbarashada iyo in budgetkan uu stateku uu hadda la kordhiyey muddo 25 sano markii ugu horreysay la kordhiyey ay tahay oo dhaqaalaha loo kordhiyey iyo qarashaadka lagu bixinayo xagga waxbarashada
waxaa la kordhiyey state grants waxa la dhaho ilmaha jaamacadda la siiyo, waxaa la kordhiyey K-12 midka la dhaho dugsiyada dhexe, dugsiga hoose ilaa dugsiga sare ee dhaqaalaha lagu baxsho la kordhiyey. taas si loo kordhiyana waxaa qasab noqotay in revenue wax la yiraahdo ama soo dakhli la helo. dakhligana haddee lagu kabahayo waxbarashadii lagu kabahayo waa in meel laga helo. sidaas waxay keentay in la kordhiyo canshuurta la yiraahdo sales tax, oo sales taxka uu soo bandhigo governorkan in la kordhiyo sales taxka oo ah waxtaad wax soo gadato oo ka badan $100 aad expend garayso ama aad qarash garayso $100 wax ka badan markii in sales tax lagu saarayo oo canshuur saaran waxaas aad gadatay si loo kabo waxbarashada xaggeeda. waxbarashadana waxyaalaha Axmedow muhiimka ah weeye, waa number 1 indicator, waa waxyaalaha ugu horeeya ku tusinaya in haddii la idinkeeda leeyahay ay qofku uu ku guuleysto noloshiisa Mareykanka haddaad joogto. waad ogtahay maalinkiina waan ka sheegay, maalinkii dambana waan ka hadlay, meelo badan waan kaga hadlaa. waxaa jirta research ay samaysay statekan California la dhahay oo ah in ay fiiriyaan waxbarashada heerka ay la eg tahay ardayga third grade-ka oo galaaska saddexaad ku jira, si ay u ogaadaan 10 sano gudaheed inta sariirood ay u balangareeyaan inta sariirood ay u baahan doonaan xabsiyada. marka there is a strong correlation between third graders achievement and the number of prisoners, number of beds they will need in the future for the prisoners. waa ogtahay marka qofkii hadduu noloshii ka dhaco, waad ogtahay noloshu tartiib bay u dhacdaa. ardaygu markuu galaaska saddexaad hoos u dhaco, galaaska afraad inuu kula qabsado way ku dhibaatoonaysaa, because waxa waaye ardayga soo jooga laba ku dar oo aan si fiican u baran uma gudbi karo laba ku dhufo. asagoo baran laba ka jar laba u qaybi ma gaari karo. marka hadduu ardaygii si fiican uusan u master garayn basicski oo galaaska saddexaad ama sagaalka labaad iyo waxa la dhaho early childhood education uu si fiican u master garayn ma gaari karo tii kale. marka si uu dib ugu dhacayo marka dambe waxaa dhacaysa inuu galaaska iska fadhiyo isagoo dhagoolaha. aakhirkana waxay sababaysaa inuu ardaygii haddii ardaygii marka uusan galaaska saddexaad ilaa galaaska koobaad si fiican uga dhismin, waad ogtahay research waxay tusinaysaa inay xiriir fiican oo adag ka dhexeeyo dembiyada qofku galahayo iyo xabsiga iyo gelitaankiisa iyo dembigelinta iyo waxaas iyo waxbarashadiisa isku xiran tahay. si qofku hadduu wax barto nolol fiican buu helayaa, nolol fiicanna wuxuu ka maarmaya inuu dembiye galo ama si xun wax ku raadsho. marka hadduu si fiican oo wax u baran waxaa dhacaysa inuu si kale khaldan wax ku raadiyo, aakhirkana xabsi ku dambeeyo. marka waa muhiim waxbarashada, waliba especially early childhood education waxa la dhaho inuu qofku si qof wanaagsan oo productive uu noqdo. marka Cabdullaah, adigu waxaad leedahay markaan hadda dhaqankaygii aan Soomaalidu aan eegno, Soomaalida qofka iskuul ka taga cunuga waxay yiraahdeen jireen waa saaqiday iskuulkiiba ka tagay. marka taasina waxay ahaan jirta waxyaalaha dadka badan ay aad u shalaayaan markay ayagoo da'yar iskuulka lagu kari waayo, waalidkoodna uu faraha ka qaado uu ka tago. wadankan Mareykanka waxaa la yiraahdaa ilaa 16 jir dawladdu waxay ku amartaa waalidka in uu carruurtaasi ay iskuul ay dhigtaan. hase haatee waxaa jirta daraasado sidaas oo kale la sameeyo oo ah carruurtu hadday ka saaqidaan iskuulka ama ay ku dhacaan fasalladooda inta ay ciyaalka ay yihiin iskuulka hoose dhexe, in ay ku adkaanayso cunugaasi inuu waxbarasho jaamacadeed u gudbo ama shaqo wanaagsan oo mustaqbalka uu u helo. haddaan u soo gudubno meetingkii maalintii dambe la qabtay, meetingka waxaad moodaa in uu aad looga hadlayo waxbarashada, waxaana ka soo qayb galay dad badan oo deegaanka ah. waxaa ka soo qayb galaan u malaynaya kuma ahaa ninkii ka socday dhinaca xagga waxbarashada oo ka hadlayay lacagta qarashka waxbarashada. wuxuu ahaa mudane asana laga doorto Senate District 4 ee Minnesota, ahna chairka ama qofka gudoomiyaha ka ah guddiga u qaabilsan aqalkan Minnesota ee waxbarashada xaggeeda. marka waa aqalka education committee-ga oo ka ahaa chair. marka waa nin aad khibrad badan ugu lahaa xagga waxbarashada. waana ninka hadda oo
saldhigga u ah inuu biilkan budgetka xaggiisa uu ka draafti karayo dhanka waxbarashada in sababna u ahaa in la siyaadiyo budgetka xagga waxbarashada. waxaa jiray dad badan oo dadka magaalada kasoo qayb galay. dadka qaar waxay iskugu jireen dad siyaasadda xiiseeya ama xisbiyada sida dimuqraadiga iyo republicanka ka mid ah. waxaana jirtay arrimo aad mooday dadka inay aada iskugu dhaafsanaayeen. waxaa jirtay dad ka hadlay baahida caruurta oo dhan in la eego. waxaa jirtay 2 qof oo Soomaaliya oo ka hadlay. luul baa joogtay oo iyada reer St. Cloud oo ka hadashay. sidaas oo kale jaamac oo asagana ka mid ah dadka waxgaradka ama ururada la shaqeeya Soomaalida joogay. aniga adiga waa joognay. waxaa jira hase ahaatee dad ka hadlay oo dadna qaar yiraahdeen caruurta oo dhan waa caruurteena. barnaamijyada caruurta waliba diversity-ga ama minority-ga waa in la kordhiyaa xagga barida luqadda afka Ingiriisiga. bal waxaad nooga sheegi kartaa hadaladii dadka micnihii qaar meesha yimid ay geysteen waxyaalaha ay ka tabanayeen? oo waxyaalaha Mareykanka ku fiican yahay u baahan tahay inaan ka barano anagana Axmed. dad kala afkaarta duwan oo kala ideology kala afkaar duwan inay inta meel isugu yimaadaan ay wada sheekaysan karaan oo wada hadli karaan oo barnaamij ka wada hadli karaan haddana aysan dirirayn oo gacan ka hadal uusan jirin laakiin afka si fiican looga dirirayo. waad arkaysay nin aan u xaqlinhay xagga conservative-ka inuu ahaa ama xagga jamhuuriga waa kii yiri ilmaha ilmaheena ma aha nin walba ilmihiisa saa mas'uul ka ah isagu waxa kala baxo oo lacagtiisa waxbarashada lacagta ha bixiyo isagu ha bixiyo asaa ka mas'uulay. waad arkaysay dhankii liberaalka iyo kuwa dimuqraadiga waa ku ilaha ilmaha dhan anaga mas'uul ka ah anagana saameynaysa waxbarashadooda waxay wanaag u taraysaa dadka ganacsatada inay helaan dad xirfad leh oo waxbartay. xagga kale aqoontana waxbay taraysaa wadanka oo tartan buu ka galayaa maadaama dadka ay wax ka qabtamayaan si khaldan wax ku raajaan marka xagga nabadgelyadina way ku fiican tahay. marka dhinacyo fara badan ayaguna ka tusay asaguna wuxuu yiri no baaha saas qof kasta asaa canugiisa wakiil ka ah. cabdullaahi laakiin arrin baa jirta dooda haddaan dib ugu noqono xagga diinta islaamka qofku marka uu caruur dhalo caruurtiisa diga mas'uulka markaan anigu dhalo let's say 20 caruura miyaan aniga aan mas'uul aanan ka ahayn caruurtayda ilaa iyo xad in aan wax mas'uul ka noqdo mas'uuliyadooda oo aanan oran cunugii caafimaadkiisa waxaa bixinaysa dawladda shilin walba ku baxa waxbarashadiisa waxaa bixinaya. tusaale ahaan waxaan kaaga soo qaadanayaa hadda waalidiinta Soomaalida qaarkood marka loo soo diro lacag leeyahay cunugaaga ma doonaysaa inuu ka qayb qaato barnaamij sportisa waxa laga yaabaa inay yiraahdaan lacag baa lagu bixinaya haddaba ma rabo oo ay u dareemaan wax allaale iyo wax lacag ah in ayan ku bixin cunugooda xagga waxbarashada. waxa laga yaabaa caruurta jaamacadaha dhigto oo kale adiguna dadkaaga jaamacad baad wadankan ku dhameysay dadka Soomaalida lacag meel uma dhigaan sida caruurtan ajnabiga ama dadkan cadaanka ay ugu ururiyaan lacag. miyaan marka mas'uuliyad ay ka saareen waalidka inuu ku taageero cunugiisa lacag dhaqaale waxbarasho soo u gashto cunugiisa maadaama uu asaga cunugan dhalay ama ifka kani ilaa kasoo Axmed waa mahadsan tahay. horta arrin diimeed waa tahay qofka inuu mas'uul ka yahay inkastoo aanan diinta hadda meeshan aanan kaga hadlayn. ideyada waxaanu isweydaarsanayna wixii meesha ka jiray waana runta laakiin waxaa jira xaqiiqadii jira labada shay oo labada waxyaalood ay sheegeen labaduba waa run markii si loo fiirsho. ilmahaaga adaa mas'uul ka ah aday mas'uuliyadda ku saaran tahay midooda waxbarasho iyo midooda mustaqbal iyo midooda behavior-ka lagu saxayo adayna waajib kugu tahay inaad si fiican u koriso si fiican wax u barto si fiican aad u hagaajiso mustaqbalkoodana aad dhisto aday kugu koobantay. laakiin haddana adiga iyo ilmihiiba labadiinaba society ku dhex jirtaan. society-gii haddaysan opportunities aysan ka jirin ama aysan ka jirin waxyaalo fursado ah oo waalidkii dhaqaale ku abuuro canuga wax ku taro way adkaanaysaa inuu waalidka keliya ku fillaado. therefore waxay noqonaysaa national interest waxay noqonaysaa wadanka waxay u noqonaysaa inay dantiisa ay noqoto inuu dadkii mustaqbalka wadanka u ahaa uu dhiso xagga waxbarashadii ka dhiso. the only thing ku sheegay waxa waaye not only the parents waalidka keliya ma aha laakiin wadanka lafan baa ugu jirta inay dadku dhismaan oo waxbartaan si ay ula tartamaan wadamada kale. waad ogtaa Mareykanku hadda aad buu hooseeya science-kii xisaabta xaggeeda marka inay wadanku isdhiso oo dad wax bartay noqdaan wadanka laftigiisa dan baa ugu jirta. taas ayadoo la leeyahay haddana dadku waxay baxshaan canshuur bay baxshaan dhaqaalahan dadka lagu kabayo waalidiinta lagu kabayo xagee ka timid soo dadku ayagu may bixin ayaga baa baxshay ayagii bay dib ugu noqonaysaa. marka waxa waaye dawladda maadaama ay canshuur qaadatay
hada ciidamada kaliya maaha waxa in la galshaayo waa in dadkii waxbarashadana dhaqaale lagu soo celshaa saas weeye marka entitlementiga horta xaggeeda ah inuu qofku uu aamino in mar walba mas-uul laga ahaado waa waxyaalaha diintu ay ka digto waxyaala xun waa dadka soomaalidan aadan uga digahaya waxaad ogaataa axmedow dadka soomaalida walaalahay dhegeysanayaan u sheegaya mar alla markaad gacantaada wax ku qaato wax lagu siiyo waxaad luminaysaa awoodii qofkii waxaad siinaysaa awood adna waxaad qaadanaysaa kaash qofkii waxaad siinaysaa awood adna waxaad qaadanaysaa cunto annaga waxaan dhihi jirnay soomaaliya markaan joogno qofkan waa nustay qof inta la geeyay meel wax la siiyey qofka dib wax ma diidi karo Soomaaliya waxay tiraahdaa af wax cunay af wax cunay xishooy marka wax xishoonayo qofkii marka in aad wax qaato awoodda bixinaysa waad ogtahay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska waa kii yiri yadul ulya khayrun min yad sufla gacanta kore ee wax bixinaysa gacanta hooseysa wax qaadanaysa ka waad ogtahay nabi ilaahi daawud kana nijaaran wuxuu biruhu ka shaqeyn jiray biruhu tumu ahaa si uu wixiisa u helo waad ogtahay nabi ilaahi muuse waa kii ariga u raaci jiray nabi ilaahi yaqoob oo ariga u raacay ijaarana kaga qaatay inuu ariga u raaco كأنه قوي أمين وكلها وحنا هين حوق له آمن شقاليسو وكي قبل كسية وحا كسية ودكتور أنبيادي ودن إني صامرين هذا الكاست قفكو إنه شقيسو قعنتيسو شرف كلية نمبر 1 قفكو وحو شرف كلية هي وإنه قعنتيسو شقيسو حدنا وحواي ما دام أن تاكس بحنه تاكس كنا ودتك يكسر نقنيسو عشورتي دتك يكسر نقنيسو حتى إن قيبتي أنا أيضا كقاعدة هذا برشة حقي أنا كبسي هذا واحد أنا كبسي مهم nimankan kale oo hadda ka dooday waxbarashada ayaan dhaqaale badan lagu bixin leh laftirkoodu waxay rabaan meelo kale inay dhaqaale ku baxaan waxay rabaan inay wadooyin ku baxaan waxay rabaan inay ciidamada ku baxaan waxay rabaan inay businessyada lagu kaalmeeyo ganacsatada marka qofna ma laha aniga ayaan wax leeysan laakiin waxa waaye taaday waxay xumeynayaan toodana waa okay waa wanaajinayaan waxay leeyihiin anagu shaqan abuurnaa dadkan shaqo abuurnaa hana la siiyo waxaan cashuurtana laga dhaafo يعني expand بدل سمينين dadka kale oo masaakiinta oo ilmahooda iskuulada u dhigtaan waxay leeyihiin anagana ilmahan wax bartaan si aan u soo saarno dad iskuulada u soo saaraan dad xirfad leh oo dadka ganacsatada u shaqeyn kara Cabdullaahi aad baad u maadhay waxaan u sheegayaa daawadayaasha naga daawanaya ama internetka ama naga dhageysanaya raadiyaha Soomaalida ee magaalada St Cloud raadiyahani waa raadiye xafiiskiisu ama stationkiisu uu ku yaalo jaamacadda magaalada St Cloud waxaan jecelnahay barnaamijyadan oo kale in aanu si toos ah u soo deeyno annagoo hadda ka bacdi bal ama maqal ama muuqaal kulamada siyaasadeed ama kulamada bulsho ee ka dhaca magaalada idinka soo gudbin doono maqal ama muuqaal hase ahaatee naga raali ahaada maadaama maanta aanu idinka sheekaynan Cabdullaahi waxaan jecelahay inaan su'aasha ugu dambayso barnaamijkii waa iska soo koobayna maanta aan jecelahay inaan ku weydiiyo waxay tahay xagga waxbarashada waa sheegtay waxaa tiri waa waxyaalaha ugu muhiimsan dadka qofka uu wadankan wax kula qaybsan karo waxaana la yiraahdaa hadda dadka cadaanka ah oo waa lacagta ugu sareysay sameeyaan dadka Asiaanka ku xiga dadka madowga u hooseeya dadka qaarkoodna waxay yiraahdaan sababta keentay inay dadka madowga u hooseeyaan waxaa kamid ah dadka Soomaalida oo aan aqoon badan lahayn marka jiilkayaga soo socday carruurteeda hadii la rabo inay marka wadankan meesha waalidkood maray ay wax ka bedelaan waa inay waxbarashada ku wanaagsanaadaan waxaa jirta hadda waa dhaweyd qoraal laga qoray magaalada St Cloud waxay ka mid tahay magaalooyinka aad loo soo dego hadda dadka qaxootigana toos loo keeno waxaa jirta warbixin laga qoray iskuulka Talaahi oo ah iskuulka hoose ee ku yaala magaaladan qaar macallimiinta kamid ah waxay ka cabanayeen akhlaaqda carruurta dabcan dadkan ay u qaateen inay tahay dadkan cusub oo imanaya oo aadka ugu batay iskuulka macallimiintina ay ku adkaatay xataa carruurta inay fariisiyaan waxbarashada waxaad kulankii maantii dhaweyd ka hadlay nin kamid ahaa boardka anigu magaciisa hadda ma garanay adiga taqaanid Bruce Moss oo kamid ah guddiga waxbarashada waa gudoomiyaha aadna cilaaqaad ula leeban u malaynayaa community-ga Soomaalida ah waana district hadda 800 bay gaarayaan sida lagu yiri carruurta waxbarashada waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo ama aad nooga warranteed waa muhiimad intee la ag bay ku leeyihiin waalidka Soomaalida ah qaas ahaan inay ka qayb qaataan waxbarashada carruurtooda ay hubsadaan cunugooda inuu akhlaaq wanaagsan iskuul ku joogo waxbarashadiisa heerka ay tahay inuu cunugiisa la socdo la shaqeeyaan macallinka ardayga wax u dhiga ama carruurta wax u dhiga
maxaad taa ka oran lahayd haddaanu su-aasha ugu dambaysan jeclaa inaan ku weydiiyo adigoo axmed waa mahadsan fiican tahay waa su-aal muhiima waana kor marayaa laakiin waxaan jeclaan lahaa barnaamij weyn inaad kaas ka samayso waayo waa barnaamij aan anigu hadda ku hawlanahay oo aan ka shaqeeyo districtigaan anigu waxaan ka ahay consultant waxaan kaga ahay parent in action wax la yidhaahdo waxaan tababarnaa waalidiinta iyo macalimiintu siday wada dhaqmi lahaayeen yaan tababar ka bixinaa maalinka khamiisa iyo maalinka talaadada maalinka talaadada waxaan mar baanu kugu soo booqan aniga naftigaana dilaan will be very great inaad ii timaadaan caawa oo kale oo maalin talaada ah waxaanu ka bixinaa iskuulka tallaahi maalinka khamiistana waxaanu ka bixinaa iskuulka discovery so labadaba waanu ka bixinaa waxaanu ka hadalnaa waxyaalaha ay muhiimka tahay inuu arday ku guuleysto ama iskuulka ha ahaato ama ha ahaato guriga ama ha ahaato societyga iyo communityga waxyaalahay ku kaalmeyn karto iyo canuga hadda xagga maskaxdiisa iyo caafimaadkiisa iyo waxyaalaha muhiimka u ah inuu wax barto waxaa jira marka waa muhiim ah oo arrintaada su-aashaada markaan kusoo noqdo waddankeeni iyo waddankan waa kala duwan yahay waddankeeni adigu aad wax kusoo baratay anna wax kusoo bartay wuxuu ahaa waddan ahaa it takes a village to raise a kid camal waxay tahay village dhan inay qof koriso oo wax barto waad ogtahay aniga adiga dugsi baa naloo diri jiray ama iskuol baa naloo diri jiray markii naloo diro iskuolka iyo dugsiga midkood labadaba naloo diro waxaa dhacaysa in dariskii dadkii qaraabada ahaa macalinkii waalidkii kulli ay ardayga u helan yihiin oodan meel inta istaagta aad wax khaldi karin maxaa yeelay dariskaa ku arkaya in hebel bay ku yaqaanaan waxaa ku arkaya kii socotada wuxuu leeya yaa dhalay canugan gurigaana laga dhalay canug guriga soo garaacaya waa ku sheegaya macalinkii iyo waalidkii xiriir fiican baa ka dhexeeya waa isku luqad meel kastay isku arkaan masaajidka isku arkayaan meel kastay isku arkayaan marka waa lagaa sheekaysanaya marka waxaa daran waxaa aad u yar inuu canugiga dhexda ka baxo laakiin waddankan waxaa jira walaal mida kale waxaa jira waddankeeni xagga waxa la yidhaahdo waxbarashada waddankeeni waxaa aad xoogga loo saari jiray waxa la yidhahdo testiga oo xagga maarkin oo imtixaanaadka ama quizka oo layliska waxyaalahaasa xoogga loo saari jiray ardayga gradeka ku heli jiray waxaan arkay macalimiin aniga hadda de maadaama barnaamijkan ka howlanay macalimiintu waxay sheegayaan ardada soomaalida waa dad maskax badan oo aad wax u fahma laakiin gradekooda waa hooseeya muxuu ka hooseeyaa layliskii iyo shaqadii guri oo loo diray homeworka ahaa ma soo celshaan annagana waxaa naqaanay soomaaliya markii la joogay laylis iyo wax homework lain kugu dira guriga inuu yaraa laakiin imtixaanaad u badnaan jireen waxyaalaha qofka uu ku helo dhibcaha gradeka waxa la yidhaahdo marka waalidkii wuxuu noqday muhiim waddankanna waxaa ka jira nidaam ah macalinku wuxuu ardayga ka mas-uul yahay inuu materialka loogu talagalay curriculumka ah in uu canugu intuu classka fadhiyo uu baro u sheego laakiin canugii inuu homework kasoo shaqeeyo inuu soo akriyo buugtii inuu revise gareeyo waxaas oo dhan waxay ku howlantahay waxay ku xiran tahay waalidka shaqadiisa waayo teeda kale canug waalidka waxaa muhiim ah canuga akhlaaqdiisa inuu dhiso soomaaliya markaana joognay waa lastumi jiray waqti waa la baqi jiray macalinkaa laga baqaaya waxaa laga baqaaya waalidka waxaa laga baqaaya dariski waxaa laga baqaaya qaraabadii wax kasta laga baqaaya laakiin halkan waxa waaye soomaalida dhibaatada hadda macalimiinta kaysay ka cawdaan laftigood waxaa kamid ah ardaygii isagoo akhlaaqdiisii aysan dhisnayn inuu yimaado iskuolka yimaado oo macalinkii sidii waagii hore macalinka looga rajayn jiray macalimiinta looga rajayn jiray inay akhlaaqdana dhisaan waxna baraan aysan ma aha halkan waxa waaye akhlaaqdii shaqa kuma laha macalimiintu waxay barayaan materialka curriculumka loogu talagalay laakiin akhlaaqda adaa lagaa rabaa hadduu canugii si yaraa u khaldamo banaankai geynayaan galaasku ka maqnaanaya intuu time out wax la yirahdo ay siinayaan laakiin waxa waaye xiriirkii macalinka iyo waalidku waa muhiim canugii inuu soo celsho shaqadii guriga waa muhiim macalinka inuu la socdo waalidka waa muhiim inuu arday waalidku la socdo dhibcaha canugiisa iyo inuu shaqadii guri celshay waa muhiim canugiisa inuu wax baranayo inuu ogaado waa muhiim caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyana waa muhiim inuu akhlaaqdiisa ka shaqeeyana waa muhiim mas-uuliyadda inteeda badan waxay ku dhacaysaa waa waalidkii marka waxyaalahaas oo kale hadda barnaamijkan hadda aan ka shaqeeyo aniga consultantiga ka ahay ama aan kala shaqeeyo districtigan uu muhiim u yahay laakiin barnaamijkan waa barnaamij dheer waa barnaamij u baahan laftigiisa inaan mar aad u falanqeyno insha allah hadduu ilaahay idmo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdullaahi inaad la wadaagtid ilaahay wuxuu ku baray mujtamaca soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkan ama magaaladan St Cloud iyo dadka kale ee sidaas oo kale naga daawanaya internetka waxaan ballan qaadi doonaa
inaanu invitationka dambe aanu kusoo darno dadka sidaasoo kale ka shaqeeya iskuulaadka qaar waalidiinta kamid ah haddii ilaahay idmo si ay bal mujtamaca Soomaalida ee ku dhaqan magaaladan ay uga hadlaan dhibaatooyinka carruurta ka haysta waxbarashada. waxaan ka dhigi doonaa barnaamij kale haddii ilaahay idmo inta aanu ku koodmi doono barnaamij kanoo kala lamid ah. waa aniga oo ah Axmed iyo Cabdullaahi Kulane oo isagu maanta marti noogu ahaa. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.